lama ogolo qofka inuu cabo biyo badan marka uu cuntada cunayo, maxaa yeelay waxaa jiro dheecaano laga soo daayo afka kuwaas oo lagu magacaabo amylase and lingual lipase, kuwaas oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan burburinta cuntadii aad cuntay. Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa ciwaan aad muhiim u ah, kaas oo ah faa'iidooyinka aan ka heli karno haddaan cabno biyo ku filan jirkeena. Haddaba sida aan wada ognahay, jirkeena waxa uu ka samaysan yahay in ka badan 60% biyo. Sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan qof kastoo inaga mid ah inuu cabo biyo ku filan ee uusan sugin inta uu ka qabanayo ool. Haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso meeqa litir oo biyo ah ayaa ku filan inuu cabo qofka caafimaadka qaba. Cabirka looga baahan yahay waxay ku xiran tahay da'da qofka uu jiro, rag iyo dumar waxa uu yahay, iyo shaqada ama activity level-ka qofka uu sameeyo, sidoo kale cimilada meesha uu ku nool yahay. Laakiin si guud qofka caafimaadka qaba waxaa laga rabaa inuu cabo ugu yaraan 8 galaas oo biyo ah, oo ka dhigan cabir ahaan wax ka badan 2 litir. Haddaba adigu meeqa galaas oo biyo ah ayaad cabtaa maalinkii? Waa kee waqtiyada ugu fiican ee biyaha la cabo? Subaxan hore marka hurdada ka soo toosto inta aadan wax kala cunin. Dadka badankood waqtiga ma jeclo cabista biyaha. Sidoo kale cabista biyaha waqtigan waxay leeyihiin faa'iidooyin badan. Waxaa ka mid ah in food materialkii ama waxyaabihii caloosha ku haray ay sifeeyaan. Sidoo kale cabista biyaha waqtigan waxaa laga yaabaa dadka inay aad u dhibto, laakiin marka ugu horeyso ee qofka rabo inuu bilaabo cabista biyaha subaxa hore, waxaa muhiim ah marka ugu horeyso inuu ka bilaabo qiyaasta ugu hooseysa. Tusaale, qofka inuu cabo wax ka yar galaas oo cabo in muddo ah, waxaa laga yaabaa in galaaskii wax ka badan uu qofka isticmaalo maadaama jirkii uu la qabsanayo. Laakiin inta badan waxaa dhacda qofka markii la dhaho subaxa hore biyaha cab, in subaxa uu koowaadba 2 galaas ama wax ka badan uu isku dayo inuu cabo, taas oo keeni doonta qofka in biyihii uusan jeclaysanin. Marka waxaa wanaagsan markastoo aad rabto inaad biyaha bilaawdo in qiyaasta ugu yar aad ku bilowdo. Galaasafkiis ku bilaaw muddo isbuuc ah, kadib waxaa arki doontaa adoo galaas biyo ah cabayo, kadibna waxaa arki doontaa 2 galaas biyo ah cabayo, oo biyaha haddaadan cabin maalintaada aysan ku toosin. Sidoo kale waqtiyada ugu fiican ee biyaha la cabo waxaa ka mid ah cuntada ka hor biyaha la cabo. Cuntada ka hor biyaha la cabo waxay kontrooli doonaan cuntada aad qaadanayso, iyadoo ay ka caawin doonaan in si habsami leh dheefshiidka ugu diyaar garoobo cuntada aad cuni doonto. Sidoo kale dadka raba inay sameeyaan weight loss oo jecel inay miisaanka iska ridaan, waxaa lagula taliyaa inay cabaan biyo marka cuntada miiska lasoo saaro oo ay diyaar tahay, si loo yareeyo appetite suppressant oo ah in qofka intuu cuni lahaa wax ka yar uu cuno, taas oo sababi doonta in qofka uu miisaankiisa hoos u dhaco. Cuntada markaad cunaysid inaad kabato biyo waxay kaa caawinaysaa in cuntada si fudud ku liqdid, laakiin lama ogolo qofka inuu cabo biyo badan marka uu cuntada cunayo, maxaa yeelay waxaa jiro dheecaan laga soo daayo afka oo lagu magacaabo amylase and lingual lipase, kuwaas oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan burburinta cuntadii aad cuntay. Sidoo kale cabista biyaha badan waxay bixi doonaan dheecaanadii la rabay inay burburiyaan waxyaabihii aad cuntay, taas oo keeni doonta in dheefshiidkii uu xumaado oo sidii la rabay aan loo burburin cuntadii aad cuntay. Sidoo kale waxaa wanaagsan qofka inuu biyo cabo inta u dhaxayso cuntooyinka, between meals. Qodobka 5, before and after physical activity. Waxaa muhiim ah inaad biyaha cabto ka hor iyo kadib markaad howlo ama jimicsi sameynayso, maadaama dhidid fara badan uu kaa baxayo. Waxaa u baahan tahay in biyo badan jirkaaga aad dib ku soo celiso. Qodobka ugu dambeeya ee 6 waxaa waaye in markaad dareento oon ama haraad aad cabto biyaha. Oonka waa signal ama fariin ka timid jirka, taas oo sheegaysa in jirka uu u baahan yahay biyo. Sidaa daraaddeed marnaba ha iska indhatirin fariinta jirkaaga kaaga imaanaysa oo cab biyaha. Waa maxay faa'iidooyinka ay leeyihiin cabista biyaha? Cabista biyo kugu filan waxay hoos u dhigi doontaa khatarta dhagaxa kelyaha ku samaysma. Qaadashada biyaha waxay ay bannaan ku saari doontaa waxyaabihii ama dhagaxaantii ku samaysmi lahaa kelyaha. 2, maqaarka inuu ahaado mid qoyan oo toosan ahna bright oo aan lahayn miin. Sidaa daraaddeed biyaha waxay ku noqon doonaan anti-aging. Qodobka 3, sidoo kale faa'iidooyinka biyaha inoo leeyihiin waxaa ka mid ah inay sameeyaan weight management ama weight loss, oo ah in qofka miisaankiisa ay hoos u ridaan. Haddaba sidee? Haddii qofka uu cabo biyo marka cuntada lasoo hordhigo oo miiska lasoo saaro, waxay kontrooli doontaa cuntada qofka uu cunayo, oo waxay sameyn doonaan appetite suppressant oo ah in qofka appetite-kiisa uu yaraado.
uuna awoodi waayo inuu qaato cunto badan, waayo calooshiisa biyihii uu cabay ayaa ka buuxa. sidaa daraaddeed mar walba qofka cunto ka yar cuntadii cuni jiray uu cuno, waxaa dhici doonta weight loss ama weight management. qodobka 4, biyaha waxay jilciyaan saxarada oo waxay ka qayb qaataan bowel movement, taas oo keenaysa in qofka si fudud uu ku saxaroodo. qodobka 5, biyaha waxay sunta ka saaraan jirka oo waxay sameeyaan detoxification. sidoo kale biyaha waxyaabaha ay qabtaan ama faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah elimination of waste products, oo sidoo kale ah in jirka ay ka saaraan waxyaabaha qashinka ah ee jirka uusan u baahnayn. qodobka ugu dambeeya, biyaha waxay ka hortagaan calool fadhiga. mowduuceena maanta halkaas ayuu ku egyahay. waxaan rajeynayaa inaad wax uun ka faa'iideen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.